kusoo dhawaada dhagaystayaal barnaamij gaar ah oo aan ku falanqayn doono dagaalka kulul ee dhawaan laga cabsi qabo inuu ka dhex qarxo Puntland iyo Somaliland kuwaasoo hore dhowr jeer isaga hor yimid dagaalo kulul oo lagu riiqmay. Haddaba haddii aynu dib u jaleecno dagaaladii hore ee soo dhexmaray Puntland iyo Somaliland, waxa aanu eegaynaa cidda guusha ugu badan gacanta ku dhigtay iyo cidda guuldarrada ugu badan dhabarka loo saariyay. Haddii aynu ku bilowno dowladdii ugu horeysay Puntland ay yeelato ee uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistee, waxa ay dagaal la gashay Somaliland. Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistee iyo Somaliland dagaalkii dhex maray Puntland waxa ay ku weyday deegaanka lagu magacaabo Ari Caddeeye. Halkaas waxaa guul kula hooyatay Somaliland. Cabdullaahi Yuusuf waa uu tagay Puntland, waxaa loo doortay madaxweyne kale Allah u naxariistee Cadde Muuse Xirsi. dib ayay isku soo abaabushay Puntland, waxa ay ku haminaysay in Ari Caddeeye ay dib u soo ceshato deegaano kalena ay kasii qabsato Somaliland. haddana mar kale dowladdii Cadde Muuse Xirsi Allah u naxariistee iyo dowladda Somaliland waxaa dhex maray dagaal kulul oo lagu riiqmay. haddana mar kale Puntland waxa ay weeday magaalada weyn ee caanka ah ee Laascaanood, taasoo gacanta u gashay ciidamada Somaliland. Puntland waxaa lagu hogaaminayaa markan 2 gool iyo waxba. Somaliland ayaa waxay gacanta ku dhigtay Ari Caddeeye oo ay ka faramaroojisay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistee. haddana markii labaad ay fooda isdareen oo uu hogaaminayay Cadde Muuse, Somaliland mar kale waxa ay gacanta ku dhigtay magaalada Laascaanood. Cadde Muuse sidii ayuu ku tagay, iyadoo ciyaarta 2-0 ay marayso ayaa halkaasi waxaa ku tagay Cadde Muuse Xirsi iyo dowladdiisa. waxaa la doortay madaxweyne kale, Cabdiraxmaan Faroole. Puntland waa uu qalabay, waa uu dhisay, juhdi fara badan ayuu geliyay, horumar weyn ayuu gaarsiiyey, balse waxa uu ku taamaya 2 gool ay Somaliland ku hogaaminayso inuu ka soo aaro 2 gool kalena u saaro. balse maxaa dhacay? Cabdiraxmaan Faroole dowladdiisa iyo dowladda Somaliland waxaa dhex maray dagaal kulul oo lagu riiqmay. haddana mar kale Somaliland waxa ay gacanta ku dhigtay deegaanka lagu magacaabo God Qaboobe. deegaanka lagu magacaabo Gambadha raalli ahaada. Somaliland mar kale waxa ay gacanta ku dhigtay deegaanka Gambadha oo ay kala wareegtay dowladdii Cabdiraxmaan Faroole. sidaasna ciyaarta waxa ay ku noqotay 3 gool iyo waxba oo ay ku hogaaminayso Somaliland. gooshii koowaad Somaliland waxa ay ka dhalisay Allah u naxariistee Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyadoo ka qabsatay deegaanka Ari Caddeeye. gooshii labaad Somaliland waxa ay ka dhalisay Allah u naxariistee Cadde Muuse Xirsi iyadoo ka qabsatay Laascaanood. gooshii saddexaad Somaliland waxa ay ka dhalisay Cabdiraxmaan Faroole iyadoo ka qabsatay deegaanka Gambadha. Cabdiraxmaan Faroole ciyaarta iyadoo 3-0 maraysa ayuu halkaas isaga tagay. waxaa la doortay madaxweyne kale, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. isagana sidoo kale Puntland waa uu qalabay, waa uu dhisay ciidamo oo hub casri wata ayuu keensaday. wax walba waa uu u dhammaystiray dhanka dhaqaalaha. waxa uu ku taamayay 3 gool ay Somaliland ku hogaaminayso inuu ka soo aaro oo goolal kale uu ka dhaliyo. balse maxaa dhacay? Puntland, dowladdii Somaliland iyo dowladdii Cabdiweli Gaas mar kale ayay fooda isdareen. waxaa lagu hardamay deegaanka Tukarraq. Somaliland ayaa goolkii afraad ka dhalisay Puntland iyadoo ka qabsatay Tukarraq. ciyaarta waxa ay sidaas ku maraysay 4 gool iyo waxba oo lagu hogaaminayay Puntland. waxaa sidaas ku tagay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyadoo ciyaarta 4 iyo waxba ay marayso. haatan madaxweyne cusub ayaa la doortay, Saciid Cabdullaahi Dani. asagana waynu arki doonaa ma 4 gool buu soo aari doonaa mise asaga ayaa dib loogu qabsan doonaa deegaano kale sida Badhan iyo Cada ama ilaa Garowe. waynu arki doonaa halka ugu dambeeyo dagaalka silsilada dheer ah ee iska socda muddada dheer
ay Somaliland guulaha badan istaga raaxaysanaysay Puntland iyo Somaliland dagaalada kulul ee soo dhaxmaray badanaa ay guusha iska raacdo Somaliland balse aynu aragno haddii madaxweynahan cusub uu arrinta wax ka bedelo oo 4 gool intuu ka soo aaray Somaliland uu gool kale ka sii dhaliyo wabillahi tawfiiq